isku keenayo isaga kasbaday kalsoonida dadka kulmiyo warida musharax Cabdi Axmed Jaamac Cabdi Qaxwe oo sharaxan golaha deegaanka ee degmada Berbera iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa safar habeenimo ku kala bixiyay deegaano hoos yimaada degmada Laasada Waco ee gobolka Saaxil si ay ugu kuurgalaan xaaladda dad iyo duunyo waxaana kamid ah deegaanada ay gaadheen deegaanka Taaga Bureeqa iyo Laasada Waco wafdigaasi waxa halkaasi si ballaaran ugu soo dhaweeyay bulshadii kala duwaneed ee ku dhaqanay deegaanadaasi odayaashii waxgaradka ka soo jeeda deegaankaas ayaa iyagu ballan qaaday inay codkooda siin doonaan labadaasi musharax xafladda qiimaha leen macaa halkaas ugu nimi waa Cabdi Axmed iyo Cabdi Axmed Jaamac iyo ninka la yiraahdo Cabdilaahi Umar Xuseen shaqale nambaradoodu halkaas ay ku yaalin nambaradoodu halkaas bay ku yaalin ka soo diyaar uma nihin inaynu sawdka siino soo diyaar uma nihin labada xildhibaan ee halkan diyaarba ku rooyay mid yahay Cabdi Qaxwe ee yahay golaha deegaanka iyo ninka la shaqale ee yahay golaha baarlamaanka labada nin ee diyaarba ku rooyay ka sharaxan labaduba gobolka Berbera ka sharaxan iyo diyaarba ku rooyay halkan loo diyaar loogu isugu yimid waxaan marka hore ilaahay ka baryahay xilka ku guuleeyo gobolka loo bartamayo gobolka raga u halgamaya ee hadiyada ku rooyay codka loo diyaar sooleenu sina maaha waxaan soo dhaweynayaa xildhibaanada musharaxiinta sharafta leh ee heer deegaan iyo heer baarlamaanba leh heer gole deegaan iyo heer gole baarlamaanba aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa haddaynu nahay reer Laasada Waco waa inaynu soo dhaweynaa xildhibaanadeenna si sharaf leh u soo dhaweynaa codkana aynu siinaa أما بعد وأنا كسر ويننا الدبانك جلها ديجانك عبد قهوة نرير Laasada Waco لما إنه ما أنت برانا إنه ماها نرير Laasada Waco وين وإنه وذا قرنا إنه والله صح لي إنه ترتمه جلها ديجانك ولما إنه رجال إنه ما يرنمله inuu tartamo insha Allah waliba uu ku soo baxo maayirnimada sidoo kalena cuqaal iyo waxgarad qayb ka ahaa wafdigaasi ayaa iyagu sheegay inay deegaankoodu isku raaceen in doorashooyinka isku sidkan ee dhawaan la filayo inay ka dhici doonaan jamhuuriyadda Soomaaliland ay u matalayaan labadaasi musharax maanta waxaan wadanaa laba xildhibaan oo mid baarlamaan iyo mid deegaan oo shaqalay Cabdi Qaxwe waxaana reer waxay suurta u sheegayaa waxaad wacays ku weedeen habar ku heli maysaan ee halka hal iska dhaafo kana bixiblaaya labadaan maanta waa laba nooc naafacaya Hargeysa Berbera baan isaga nimi waxaanu Ilaahay ga baryaynaa inuu xilka ku guuleeyo innagana codka lagu guuleeyo waynu kumoobeena hadii soo saar weyno labada xildhibaan ee halka maanta aan marinayno magaalada wanaagsan ee sida waxaan looga soo dhaweeyay ee naloo soo galbiyay ee Sooriyada waxaan naloo ballaariyay rag iyo dumarba labadaana nala baritaara ilmaadeeraya duwaanka waanu idinku dhignay oo tuuladaas duwaanka way ku taalaaye labadaana nala baritaara aynu wada baritaarno dawladda aynu ku yeelano labada shaqale iyo Cabdi Qaxwe waxaanu halkan wadnaa laba xildhibaan oo ka tirsan golaha baarlamaanka iyo golaha deegaanka kana sharaxan xisbiga dawliga ee kulmiye labada xisbiga dawliga ee kulmiye ka sharaxan waxa weeye xildhibaanada la doorto
niman waxay ka sharaxan yihiin xisbiyada mucaaradka waa la shaqo geeyaa nimanka ka sharaxan kuwa dawladduna dee dawladda wax ka noqdaano midna maayar buu noqdaa midna ama guddoomiyaha baarlamaanku noqdaa ama xubnaha sare waxaan leeyahay reer Laasada Cawooy waar maayar baa u baahantiin idinkuna magaaladiinna wuxuu qabto baahiyaha asaasiga iyo laamigaaba idiin dee ugu rida ma ugu ridaysaa reer Laasada Cawooy waxaan leeyahay laba musharax oo u sharaxan golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka waxaan doonaynaa sidaa fiican ee asluubta leh aan ugu soo baxdeen annagu waxba reer sheegi mayno waxaan marti u nahay degmada Laaso sababta oo ah ninka soo baxay madaxdaahi waa nin gurigan Laaso ka soo baxay reer Laaso waxa lagu yaqaanay xisbil xaakimka xisbiga dawladda lagu yaqaanay horumarka lagu yaqaanay isku duubnida lagu yaqaanay waxaan leenahay reer Laaso labada musharax ee xisbiga kulmiye ina siisaan codka diyaar mawtiin waa mahadsantihiin gabagabadii waxaa isagoo halkaasi ka hadlay musharax Cabdi Axmed Jaamac Cabdi Qaxwe bismillaahi raxmaani raxiim reer Laasada Cawo waan salaamayaa si aad iyo aad baan salaamayaa waayo sida fiican noogu soo baxdeen ee noo soo dhaweyseen ee noo ajiibteen iyaan aad iyo aad idinku mahadnaqaynaa waanaanu ila joognay dee Laaso horta waxaan idin sheegaynaa reer Laasada Cawow waxaanu maanta idin soo dooranay inaad codkana siisaan oodna doorataan waad garateen soo maaha annaguna wixii nagu waajibeenu qaban karno waanu qabanaynaa dee magaaladu waa magaaladeedii yaa wixii aanu qabanayno waanu qabanaynaa haddii alla ka dhigo waanaanu ininkaanu inii sharaxanay ininkaanaanu cod idinka doonaynaa baana markaa haddii alla ka dhigo reer Laasada Cawow dee bal waa la eegi doonaa bal codka sidaad dee u gashaan iyo sidaad dee soo hawshaa u qabataanba annaguna waxaanu iniin ballan qaadaynaa inaanu wixii aanu qaban karna aanan waxba aanu hagnan wixii aanu qaban karna baanu qaban haddii alla ka dhigo waanaynu dee isu soo noqonaynaa hawshii way noo dambaysaa haddii alla ka dhigo waanaynu isu soo noqonaynaa haddii alla ka dhigo hawshii ololi way noo dambeeyaan caawun dee maaha intaynu soo nimid dubna waynu isugu soo noqonaynaa haddii alla ka dhigo Maxamed Cali Dhuux telefishinka caalamiga Gobonimo TV magaalada Berbera